aad iyo aad baan idin salaamaya. Ha isku noqon basaas. Waxaan doonayaa dad badan inaan xasuusiyo. Dad badan way og yihiin. Laakiin in kale bareeraysa ama in kale ay ka hoos baxaysa inaan xasuusiyo. Moobiladan loo yaqaan smartphones-ka. Waxaan u bixiyay garaadsame. Moobilada markastoo casri laga sii dhigo. Imka waxa la galay adduun saameyn ku yeeshay waxa loo yaqaan AI ama artificial intelligence oo hadda shirkadooyinka ku tartamayaan waa adduunkii saameyn ku yeeshay. Inaan saaxiibna maal wixii iga sheekay moobilada casriga iibsaday wuxuu runiyay marka saacadna way wataan. waxbuu niyada ku qabanayaa ama waxbuu ka hadlayaa wixii un baa xaysiiskiisa wada hormarayaan. Suuniyaha dhabriyahan waxa niyada ku qabto ama aan yar soo hadal qaadabay hormarayaan maxaa dhacay? Asaan ku irdo moobilada ku basaasaya ama saacadda xiranta ku basaasaysa. Marka sidii baan noqotay markii dambe. Marka ninkii nala joogay saaguna sidoo kale ay ku dhacday baa saaguna la wadaageen sheekadina la wadaagay. Marka waxaan uga socdaa waxa hadda aad u fududaatay in qofka xogtiisa si sahlan loo heli karo. oo moobilkaaga ayaa ku sheegaya uun halkaad martay, halkaad wax ka cuntay, halkaad seexatay. Ha isku noqon basaas. Adigu ha israad gurin. waxa ka siiya badan dad iyagoo falal dambiyeed sameynaya iska soo duuba. walow dumar badan baan daawado. dumarku aad u feejignaadaan. qof bay waxaana ka dhowr nin oo la wanjalay oo muuqaala laga duubayo iyagoo burar sita qaar maxay kala sita qaar kale dagaal ku jiro wax iska duubaya. ha isku noqon basaas ama ha urursan markhaati furkaaga hadii maxkamad lagu geeyo. noloshaadu gaar ha ku noqoto. meel kasta tagta waxba macna badan kuma jira dadka la wadaagto. waa noloshaada. haddaad baraha bulshada ku jirto wax ku gaara iyo waxa dadka la wadaagtay inay ku kala duwanaadaan inay sohodin ku kala lahaadaan. wax kasta oo aad samaynaysaa waa noloshaada inaanad soo bandhigin. waxay ka fursan weydii ama isleedahay waxbaa laga baranaya ama isleedahay dadka ay wargelin bay xambaarsan yihiin ama wacyigelin bay xambaarsan yihiin ayaa muhiim in dadka la wadaagto. laakiin wax kasta dastra la wadaag waxba naftaada basaasaysa adaa isbasaasaya. marka haddii hadhow toolade subxaanaka yaa cadiim dee dhibitimaado si yar sahlan baa lagu dabageli karaa lagu baari karaa. marka waa iga talasiin guud ha basaasin naftaada oo adigu ha isbasaasin oo adigu ha israad gurin oo adigu ha subxaanaka ha isdabagelin. noloshaada waxa kuu gaar ka ilaasho. hadday qoyskaaga tahay nimcooyinka ilaahay ku siiyay hayso ilaahay uga mahad celi alxamdulillah dheh. laakiin macna wax badan oo ku jira ma jiraan dadka hor wadwado aad dadka hor keento. haddii ilaahay awlaad qurux badan ku siiyay alxamdulillah dheh. deednaha ku qarsoonaadaan. haddii guri fiican oo qurux badan ku jirto alxamdulillah dheh. ilaahay uga mahad celi. haddii gaari wanaagsan aad haysato haddii aad nimco kale haysato qurux badan ilaahay uga mahad celi. inaad dadka hor keento dadka tustuso waxa la wax macno ku jira ma jiraan. marka waqtigu heer sare idin haado adigu basaas isku noqon. waa cabshukur maxamed ku dhaafaya. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.